dadaalada diblomaasiyadda ee ka socda magaalada Islaamabad ee caasimadda waddanka Pakistan waxay noqotay mid indhaha si weyn loogu hayo guud ahaanba caalamka. hase ahaatee dowladda Iran waxay soo bandhigtay hindise ay doonayso in lagu qaato heshiis isla markaana Mareykanka iyaga ay ka amba qaadaan geedi socodka wadahadalka si loo soo eebiyo colaadda muddada 40 maalin ka jirta gobolkaasi isla markaana dhinacyada Iran iyo Mareykanka iyo Israa'iil ba uu ka soo kala gaaray qasaaro fara badan oo ugu adag yahay dhaqaalaha iyo waliba in kaydka gantaalaha ee dowladda Mareykanka iminka lagu soo waramayo wax badan in laga isticmaalay taas oo hadii dowladda Mareykanka ay dagaal weyn la gasho dal sida Shiinaha oo kala ah saameyn uu ku yeelan karo. arrintan waxay noqotay walaaca ugu weyn ee hadda caalamka ka taagan. su'aasha taagan waxay tahay bariga dhexe ma lagu heshiin karaa xilligan Islaamabadna ma ka gudbi kartaa waa Pakistan imtixaanka diblomaasiyadda ee horyaala. madaxweynaha dalka Mareykanka suuragal ma tahay in si dhab ah uu u wajaho wada xaajoodkan maxaase hortaagan ergadiisa bariga dhexe Jared Kushner iyo Steve Witkoff inuu u soo diro wada xaajoodkan. dhinaca kale maxaa ka jira wararka ka soo baxaya qaar ka mid ah warbaahinta waaweyn sida majalada The Axios oo tilmaamaya in ay jiraan wada xaajoodyo hoose oo ay suuragal tahaba in si hoose heshiis loo wada gaaro. haddii se dagaalka mar kale gobolka bariga dhexe uu dib ugu soo laabto waayo cidda dhibaatooyinka ugu waaweyn ay ka soo gaari karaan. arrintan ayaan si gaar ah ugu faaqidi doonaa barnaamijka faaqidaada wararka dibadda iyo diblomaasiyadda oo aad kala socotaan janalka Cabdulcasiis Barrow khiyaarta inala socotay. haddaba sida aad la socoteen dowladda Mareykanka waxay muujinaysaa rajo xumo weyn oo ku aadan dowladda Iran inaysan daacad ka ahayn soo jeedinta iyo waliba rabitaanka inay furto marinka Hormuz iyana laga joojiyo dagaalada isla markaana laga qaado cunaqabataynta sida uu caawa u sheegay telefishinka Fox News ee dalka Mareykanka Marco Rubio oo ah xogayaha muraha dibadda ee Mareykanka ahna siyaasiyiinta sida gaarka ugu dhow madaxweyne Donald Trump. arrimaha waxa si gaar ah ila falanqeynaya Saare Cabdi Axmed oo ah maamulaha iyo waliba asaasaha telefishinka Somali Coverage TV oo fadhigiisu yahay waddanka Mareykanka gaar ahaan magaalada Washington. Saare marka ugu horeysa sharaf ayay noo tahay inaad barnaamijkan Barrow Show kala qayb qaadanayso. markaad eegto sida ay wax u socdaan doodahan iyo waliba indhaha lagu haya Islaamabad dowladda Iran waxay soo bandhigtay hindiso gobolka bariga dhexe wali xaaladiisu ma fadhisa maxaa lagu macnayn karaa aragtida labada dhinac ay kala qabaan. Cabdicasiis aad baad u mahadsan tahay waana bogaadinayaa Barrow Show waxaa jirto in maaragtay dhinac markii laga eego dhinacyadu ay kala haystaan labo xaajood oo aad u kala adag. inkastoo warbaahinta Mareykanku maanta iyo shalay ay warinayaan oo warar hoose ay soo baxayaan wada xaajoodyo gunta hoose oo warbaahinta aan loo soo bandhigaynin inay jirto kuwii hore fashilmay kadib kuwaasi oo Iran hadda laga dhaadhacsiiyay in marinbiyoodka Hormuz ay ka leexato oo aysan sida hadda ay macnaha gacanta ugu hayso u leedahay cid soo martaba waxaan doonaan ka yeeleynaa aysan yeelin ayagana ay ku gorgortamayaan in laga qaado ciidamada Mareykanka ay 15 kun kor u dhaafay ee gaadiidka diyaaradaha dagaalka iyo maraakiibta dagaalka ay kaga sugan yihiin biyaha Hormuz iyo meelan sidaas uga fogeen bariga dhexe. marka waxa muuqanayso ka sokow dadaaladaasi hoose kuwii kore ogeyn way burbureen oo Mareykanku waa tuu ku adkaystay dabcan in maaragtay haday wada xaajood rabto Iran ay marinbiyoodka Hormuz faraha kala baxdo. Iranna waxa kaliya ka hadlaysa waxay ahayd hadaa rabtaan inaan anagana maaragtay aan banneeno wadadaas waa inaad adinkana ka baxdaan. marka laba daran ayay kala doorteen dhinacyadii oo qolo walbaba wixii ay haysatay ayay ku sii dhigtay fikradeeda ayaana si naaxisantay. wixii ugu dambeeyay laba cisho ka hor shirki ka dhacayay Islaamabad oo ay lahaayeen dowladda Iran iyo sidoo kale dowladda Pakistan iyo dowladda Mareykanka ilaa labada wafdi ka kala socdo Mareykanka iyo Iran isma hor fariisanne waxay ka wada hadlayeen sidii qolo walba looga soo dhaqaajin lahaa meesha ay joogto. waa tii Mareykanku degdeg ugu yeeray wafdigoodii oo ay sheegeen inaysan u anbabixin halkaas dowladda Mareykanku ay sheegtay degdegna uga
baxay Abbas maxaan ku raahdaa magaalada wasiirka arrimaha dibadda Iran magaalada Islamabad laakiin se dib ugu soo noqday dib u noqoshadii dambe ayaana keentay miraha in dadka dhinacyada ay quseysay diblomaasiyiintu ay hoosta ka wadaan arrintan waxaa kaloo jirta arrinta hadda waxaa ku soo korortay in maanta uu joogo wasiirka arrimaha dibadda inkastoo horey loo sii ogaa haddana ruushka uu joogo Moscow warbaahinta Mareykanku si oo maaragtay aad dareemaysid inay cadiifad ku jirtay in badan oo kamid uga hadlayaan waxaa la leeyahay Iran waxa ay khatar gelinaysaa ciidamada Mareykanka ku sugan gacanka waxa ay khatar gelinaysaa oo dagaal ku qaadi kartaa oo maaragtay ruushka uu siin karaa gantaale ay ku weerari karto maraakiibta Mareykanka ee halkaas ku sugan marka waxaa jirta in Sergey Lavrov iyo ay wada hadleen wasiirka arrimaha dibadda ee Iran madaxweynaha wadankaasi Vladimir Putin iyo Abbas ay wada hadleen lagana wada hadlay dabcan xiisada bariga dhexe oo awalba hoos loo hadalhayay wadanka ruushka oo wadan super power ah iyo Shiinaha oo sidoo kale awood kale tale oo labaduba laba wadan oo ku hubeysan hubka nuclear-ka ay yihiin in ay gardaadinayaan oo ay wadaan wadanka Iran tiina maanta banaankii taagan tahay marka waa arrin dhinacna xiisad kale waana arrin dhinaca kale soo dedejin karta wada xaajood rasmi ah in laga gaaro xiisada bariga dhexe waa gartay marka la fiiriyo laba hogaamiye oo kala duwan ayaa maanta waxay muujiyeen fanka diblomaasiyadda marka la eego dowladda Iran inay soo bandhigayso awood weyn tusaale kale Friedrich Merz ninka la yiraahdo ee Jarmalka hogaamiye waxa uu yiri dowladda Iran kamayna filayn in intan oo awood ay leedahay marka diblomaasiyadda la eego halka Ruushka hogaamiyaha Vladimir Putin iyo Abbas Araghchi oo St Petersburg magaalada la yiraahdo ee Ruushka ku taal ku kulmana oo Araghchi yiri xiriirka naga dhaxaya waa mid istiraatiiji ah Putin oo leeyahay dowladda Iran waxa ay muujinaysaa shacabkeeda iyadaba inay birlab yihiin arrimahan marka la isku akhriyo xasaasiyadda ka dhax muuqan karaysa saar maldee kara heshiis in la gaaro waa dhow yahay waa suuragal waayo adduunku wuxuu marna wax ku qaataa in xaqiiqada jirta la arko oo la dhoo kama gudbi karna darbigan ee maxaa xal ah marna xalka ayaa iskis u yimaada marka hadda xaaladdu waxay u muuqataa awood iyo murqo waa la istusay in xalkii muxuu noqon karaa la dhaho sida aad sheegtay dalka Jarmalka wuxuu ahaa wadankii ugu horeeyay oo Iran markii lagu duulay dhahay waxaa la soo gabagabeyn doonaa saacado maalmo gudahood wadankaasi Iran isla markaasina kamid aha dalalkii had iyo goor guul iyo guul darro gardarro iyo maaragtay garabba ku garab taagnaa dowladda Mareykanka duulaamada ay ku qaado had iyo goor dalalka kaleeto hadda laakiin hadalka ka soo yeera cajiib buu leeyahay waxa kaleeto xusid mudan in uu sheegay ninkaasi ugu sareeyay dalkaasi Jarmalka Friedrich Merz la yiraahdo in dowladda Mareykanku aad loo bahdilay ayuu yiraahday marka loo fiiriyo Iran iyo dagaalkeeda waxa uu sheegay in Washington waxyaabo fara badan ay isku dayday oo ay rabto in ay dagaalka ku dhameyso laakiinse maadaama aysan ku gelin istiraatiijiyad cad markii hore taba dagaalka waxa uu yiri in ay dhameyso oo si rasmi ah u dhameysan istiraatiijiyadeedii ma hayso dhabooyin qaldan bay hore ugu martuu leeyahay wadamo kaleeto oo dagaal ay ku qaadeen Mareykanku sida Afghanistan iyo Iraq oo kaleeto si qaab daran bay haddana uga soo baxeen uu dhahay oo istiraatiijiyad la'aan ah haddana waxaa muuqanaysa leeyahay in Mareykanku isaga safrayaan Islamabad iyadoo oo aysan jirin dariiqyo cad oo ay haystaan oo ay rabaan in xiisada ka taagan bariga dhexe ay ku soo gabagabeeyaan balse ay safrayaan markay safraan xagga ay tagaan waxna ay saheeyna ay soo noqonayaan marka hadaladan hadalla cajiib ayay maaragtay noqdeen markii la eegana Iran dhinac hadii laga fiiriyo dagaalkii intaasoo bilood ku socday way u adkeysatay weerar dhan walbo dadkeedii lagu laayay madaxdeedii lagu baabi'iyay mukhaabaraad fara badan oo leeyihiin maaragtay ayaa shaqeynaya waxaa muuqanaysa dhinac markii laga eego Iran iyadoo cunaqabteen intaas la eg wadan uu sarnaa intaasoo sano ah haddana dalalka adduunka ugu xooga badnaa Israa'iil oo la dhahay bariga dhexe ugu awood badan tahay Mareykanka oo la adduunka ugu xoog badan yahay ayay u babac dhigeen muddo intaas la eg la dagaalamayaan marka iyo haddana waxaa muuqanaysa inay saaxiibtinimo abuurteen Iran tishalayta ma aha oo cunaqabateenta qaramada midoobay intay saarto wadamada adduunka intay isugu tagaan la cadaadinayo maanta ayadii loola gorgortamayaa
sababo la xiriira adduunkii cunaqabateen ay ku samaysay marinbiyoodka hormus markay fariisteen sababo la xiriira dhaqaalihii adduunka oo guri walba gaaray ama maxaan ku dhahaa waddan walba gaaray oo hoos u dhacay shidaalkii oo laga dareemay dalalka reer galbeedka ayagiyaa maanta la baryaaya taas ayaa waxay ka dhigaysaa potential inay leeyihiin gaara oo aysan horey u lahayn iiraan ma la dhihi karaa hadalka jarmalka haddii aan sii daba soconno mars hadalkiisan waxa uu ka doonayaa Trump inuu si dadban uga jawaabo maadaama in muddo ay haysteen NATO oo Trump uu lahaa NATO howlgab ayay u muuqataa oo shaqadii laga rabo waa qaban laadahay dagaalkan oo nagu fiirsadeen dalalka Faransiiska iyo Jarmalka iyo waliba dalka Britain ay dhowr jeer cansho la dhihi jiray cunaqabateyntii snapback dib baan ugu celinaynaa Iiraan ay ku anjabi jireen kahor intaanu dagaalka bilaaban ma la dhihi karaa dagaal NATO u dhaxeeya oo wajiyada diblomaasiyadda loo adeegsanaya ayaa garab jilicsan tusaya dowladda Iiraan saas ma loo fasiri karaa hadalka Jarmalka way noqon kartaa iyada laftirkeeda waayo waxaad ogtahay madaxweyne Donald Trump inuu xataa xusul duub xoogan ugu jiray maalmihii la soo dhaafay sidii dowladda Spain ay maaragtay banaanka uga istaagi lahayd ama looga saari lahaa ama galaangalkeeda loogu diidi lahaa NATO waxaa jirta in wadamadan saad sheegtayba Jarmalka Spain Talyaaniga Faransiiska Ingiriiska wadamay hogaaminayaan oo 40 dal ah ay ka shirayeen waxa ay ka yeelayaan dagaalka bariga dhexe iyo positionka ay qaadanayaan NATO go'aan cad ayay qaadatay NATO waxay ahayd wadanka kaliya ku barbar taagnaa Mareykanka duulaan kasta oo Mareykanku banaanka badaha uga talaabayo hadda way diideen si cad ayay u qeexeen inaysan rabin in dagaal ayaga ay sameeyeen inay macnaha ama aysan abuurin inay ka mid noqdaan oo aan gardarro ahayn laakiin wadan kale u arkaan inuu macna darro lagu weeraray marka taasa Trump waxay ka dhigaysaa in sas badan uu ka qaado dalalkan reer Yurub ee ku jira NATO siyaasad ahaantooda ay xumaato ra'iisul wasaaraha Ingiriiska waad ogeed baarlamaanka wadankaas ayuu hortagay marka laga reebo in yar oo maaragtay midagta fog ah oo dabcan wadankaas Britain qayb ahaan siyaasad ahaan isku dayay dowladda liberaalka inay dhex galaan way diideen shacabku way diidanayeen Talyaaniga sidoo kale waad ogeed gabadhii xataa ra'iisul wasaaraha ka ahayd in iyaduna sheegtay in Israel iyo Talyaaniga ay kala gurteen mariyo dhiig la kala qaateen oo ay tiraahday xataa intaas sano defensiga ama taageerada aan siinayna Israel dhinaca ciidamada iyo dhinaca qalabeynta ciidamada iyo tababarada ciidamada iyo wixii dhanba waa joojinay tiraahday sabab la xiriira dagaalka gardarrada ah iyo ayadoo ciidamadeena lagu xadgudbay tiraahdo ku sugan bariga dhexe waad arkaysaa wadamadii khaliijka awood badan ay ku difaaci karaan Iiraan ma lahan Israelna waaba aamusto ayadaaba dadkeedii 2 bilood guryaha hoostooda ay ku nool yihiin marka dagaalkan dhinac markii laga eego Iiraan wuxuu u yahay ayadu wuxuu u noqday ka sokow in dad badan ay uga dhamaadeen saan dhowr jeer sheegayba ka sokow in maaragtay loo arkayo awood soo baxayso si walba lagu cadaadin doono ama lagu sii wadi doono dhibaateynta waxay muujisay laakiinse awoodeeda inay banaanka istaagi karto adkaysi dad resilience leh oo isku duuban waxaa la filayaa in gudaha wadanka Iiraan dad laga kicin karo oo shacab ah oo shacabkaas ay dawladda ka hor iman karaan tiina ma aysan dhicin oo dadka shacabka ahaa markii la yiri waxaa la baabi'inayaa in maaragtay korontadiina bridgeediina waxaa la baabi'in doonaa markii la dhahay xarumihiina dawladda iyo infrastructure-ka wadanka dhan uu leeyahay waxa ay go'aan ku gaareen inay dawladda barbar istaagaan in badan oo kamid ah waxay sameeyaan dibadbaxyo maaragtay looga soo horjeedo mararka qaarkood aad arki kartid Mareykanka iyo Israel ka sokow dad yar oo Iiraaniyiin ah oo ku dhaqan qurbaha sida hadda xarunta qaramada midoobay meel kamid ah ka wada mudaharaadyo kuwaasina loo arkayo siyaasad ahaan in meelahan laga kicinayo sida wararku ay sheegayaan ama warbaahinta qaar marka Iiraan waxay u muuqataa inay banaan soo istaagtay haddana kaliya ma ahan Asia kaliya ma ahan gobolka ee xataa isku dayayso bariga Yurub iyo inay sii gaarto wadamada kale ee fog ee maaragtay Mareykanka xuluf ahaanna ay xulufaysan karaan Mareykankana ay hayaan siyaasad ahaan
tusaale kale aad baad u mahadsantahay si fiican baad halkaa u dhigtay marka aad fiiriso madaxweyne Donald Trump waa nin siyaasadda marka la eego aad isku badbedela oo isagoo mowqif adag dhinaca ka haysta haddana la arko in si degdeg ah uu dabco taas oo laga baranayo dagaaladii bariga dhexe ka soconaya markii Israa'iil oo kale iyo Gaza dagaaladu ay jireen laakiin waliba dagaalka Ruushka iyo Ukraine oo kale aad ogeed inuu si degdeg ah isku badbedelay marka la fiiriyo hadda Jared Kushner iyo Steve Witkoff uma soo dirin Islamabad kaydadkii Pentagonka wasaaradda dagaalka waxa la leeyahay gantaalo fara badan oo Tomahawk uu kamid yahay Patriot uu kamid yahay THAAD gantaalka la yiraahdo uu kamid yahay difaaca inta waxa la leeyahay boqolkiiba 50 waa la isticmaalay waana tiknoolajiyada Mareykanka militariga adduunka uu ku maamulo haddii marka xaaladdu sidan sii ahaato gobolka bariga dhaxana xiisadiisana sidan u sii taagnaato Mareykanka shacabku sidee u fasirayaan arrintan cabsi xoogan ayay leedahay xilli waliba xataa Mareykanku waxay arkayaan wadamadii Mareykanku ay sida weyn isu hayeen ee Ruushka iyo Shiinaha in Ruushkin uu ka taageerayo mukhaabaraadka Shiinahin uu ka taageerayo ayaa la leeyahay sistamyada kale ee tiknoolajiyada Iran ayay arrintan imaanaysaa waa sax Mareykanka maalinkii intaasoo milyan oo dollar ayuu ku dhuminayaa oo canshuurta dadweynaha Mareykanka waa dad canshuur bixiyaal ah waa dad ku xisaabtamo maaragtay dhaqaalaha ay dawladda siinayaan marka Mareykanka la leeyahay gantaalaha qaybo kamid ah halkaas ay u isticmaalayeen ayaa qayb ahaan ka sii baaba'ayso goobihii keedkay ku jireen waa waxa la dhayalsan karin muddo maaragtay 2 bilood ku dhow ayuu dagaal ku socdaa waxaad ogtahay in xataa Mareykanka markii xataa dagaalkan la aaday ayaa wasaaradda difaaca waxa ay sheegaysay khubarada militariga Mareykanku in dhaqaalihii Mareykanka iyo hubkii Mareykanka iyo haday noqoto gantaaladii Mareykankaba hore loogu sii qaaday dhinaca Ukraine oo dagaalka Mareykanka Ukraine uu kala qayb ahaan lagu baabiiyay tanina ay noqonayso ayay yiraahdeen dagaal daba dheeraan karo oo khatarteeda leh haddana waxaaba muuqataba Mareykanku in ubuucdii wadankaasi ee gobolka bariga dhexe uu geeyay dhamaanba hubkii haday noqoto waxaad ogtahay waxa joogan maraakiibtii ugu waaweynaa ee Mareykanka ee dagaalka oo aanan tobanaan sano over a decades ayaa la leeyahay laga bixinin Mareykanka waxa kamida kii hadda ugu dambeeyay Abraham Lincoln waxa kamida kii kale to Gerlach waxa kamida maaragtay saddexda markaba ugu waaweyn ee Mareykanka ee maalmihii ugu dambeysay aad loo hadalhayay George thank you USS George W Bush ayaa kamida marka waxaad qiyaasi kartaa marka tiro intaas la eg oo maxaan ku raahdaa isha gaadiidkii haday noqoto quusayay diyaaradihii shidaalka hawada ku siinayay gantaalada ku xambaarayay haday noqoto F-35 F-16 F-18 kulli meesha joogaana la leeyahay maalin kasta 15,000 oo ciidamo ah dhaqaalahooda iyo waxooda waad garan kartaa marka bal qiyaas adiga Mareykanka dhaqaale intee la eg buu ku bixinayaa ayadoo taasi ay jirto ayaa haddana dagaalka hadda uusan u muuqan inuu soo gabagaboobayo ama nabad ama dagaal batoona waxaana lagu xisaabtamayaa islaha markii hore tabo 4 bari muu qaadan doonaa 7 muu qaadan doonaa Iran dagaalkeeda waqti yar buu qaadan doonaa baa la lahaa marka haddana wuxuu u sii socdaa 2 bilood intaas qarash ayaa Mareykanka ku socda xiisadu way sii fogaanaysaa marka Trump waxa keenay in maal walba uu isrogrogo waxa qaybka ayaa la leeyahay waa midoo ayada oo dhinaca kale ay ku xiriirto dawladda Israa'iil waxa la og yahay in ay doonayso in Iran lagu sii wado dagaalka Donald Trumpna gudaha wadanka Mareykanka oo doorashooyin uga soo socdaan oo xisbigiisa ee Republicanka siyaasado xoogan uu wajahayo dhaqaalihii wadankan oo hawada sii maray shidaalka 3 jibaar ku sii socdo dadka Mareykankana waa dad fakara hadii qofka danta uu leeyahay ee cuntadiisa iyo shidaalkiisa iyo baabuurkiisa iyo shaqadiisa uu waayo dawladdu ku soo noqona cashuur ma waxaan ku siinaa inaad aniga nolosha ugu dhibta ayaa taala markaasina marka waxa soo dhan Trump waxa keenaya marka inuu mar walba isbedelo mar uu hajuumo mar uu digniino soo saaro mar uu xulufo kale raadiyo waxa keenaya waa siyaasadda aan deganeyn Mareykanka iyo dhibaatada iyo culayska ka haysta iyo awoodda uu u leeyahay inuu ku xakameeyo arrinta Iran
aad baad u mahadsan tahay Sahra Cabdi Axmed. adiga mudan baro waayahay khiyaarta nala socota tabintan iyo taxliilkan gaarka ah oo aynu ku eegaynay arrimaha diblomaasiyadda iyo waliba dhaqdhaqaaqyada ka jira gobolka bariga dhexe ee la doonayo in lagu gabagabeeyo colaadda u dhaxaysa dowladda Iran iyo dalka Mareykanka oo ay ku lamaanan tahay Israel ayaan intaa ku gabagabaynaynaa. Si aad macluumaadkan iyo kuwa kale oo ka sii faahfaahsan aad u heshaan waxaad si toos ah u daawan kartaan telefishinka Somali Coverage TV oo ay Sahra Cabdi Axmed gacanta ku iyo channelkan Cabdilcasiis Barrow. aad baad u mahadsantiin ku soo dhawaada oo labada channel ba subscribe saarta. soo dhawaada mar kale.